Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay gaadhay guul weyn iyadoo fariin cad u dirtay inay weli yihiin koox faraxsan oo aan niyad ahaan u jabin. Kooxda kubadda cagta Chelsea oo maanta xayiraad lagu soo rogay dhaqaale ayaa waxay tiri waan ku xasuuqday kooxda Premier League ugu hooseysa ee Norwich City. Chalaba ayaana hoggaanka u dhiibay, sidoo kale Mason Mount ayaa isaguna ku tuurtay, waxaana ciyaarta hurdada u diray Kai Havertz oo ciyaartii dhammaadkii ciyaarta goolkii saddexaad u saxiixay, halka goolka Norwich City uu ahaa penalty kaasoo uu u dhaliyay Buki. Haddaba kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa muujisay in xayiraadii maanta lagu soo rogay kooxda ayna waxba u dhimayn, kaasoo ay direen fariin cad oo u dirayaan dowladda UK. Chelsea waxa ina leedahay libaax qoyay biisad hamoodin. Chelsea waa si madax adag tahay shan ay gaadhay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay ku sii jiri doonaan kaalintooda saddexaad iyagoo yeeshay 56 dhibcood, waxayna 8 dhibcood ka sareeyeen kooxda kaalinta afraad ku jirtay Arsenal. laba kulan ay u harsan yihiin. Marka loo eego kooxda kubadda cagta Chelsea, 4 daqiiqo oo kaliya ayay ku qaadatay kooxda kubadda cagta Chelsea inay hoggaanka ku qabato iyadoo koorna uu soo tuuray Mason Mount uu madaxa la helay ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Chelsea ee Chalaba, kaasoo hoggaanka u dhibay 4 daqiiqo oo kaliya markay ciyaartu socotay, waxayna ahayd ciyaar ay Chelsea ku bilaamatay inay si dardar leh ku soo gasho ciyaarta. Haddaba 10 daqiiqo kadib ayaa mar kale waxaa hoggaanka u sii dheereeyay Mason Mount, kaasoo kubad uu ka helay Kai Havertz uu shabaqa ugu shubay goolkii labaad oo kooxda kubadda cagta Chelsea. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa qaybtii hore waxay soo bandhigtay ciyaar aad u heer sareysa iyadoo 76% kubadda haysatay. Ciyaartuna waxay marisay 2-0 ay hoggaanka ku hayso kooxda kubadda cagta Chelsea. Haddaba bartamihii ciyaarta qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa kooxda Norwich City oo marti loo ahaa ay cadaadis badan ay saartay kooxda kubadda cagta Chelsea iyadoo markii dambana ay heshay rigoore kaasoo uu kubad gacan kaga dhacday Chalaba. Goolkan ayaa waxaa laga soo daawaday in laga hubiyo faarta maadaama shaki uu ku jiray inuu gacan ay ahayd, laakiin ugu dambeyn waxaa la ogaaday inay Chalaba kubadda gacanta ay kaga dhacday, waxaana goolka u soo istaagay oo u dhaliyay Norwich City Buki, kaasoo isaguna jaha khaldan u diray goolkii baha Chelsea ee Mendy. daqiiqo kadibna waxay Norwich City kubad iska khasaaraysay, laakiin waxaa ka badbaadiyay goolkii baha Chelsea iyadoo Norwich City ay soo bandhigtay ciyaar qaybtii labaad fiican laakiin kama ay faa'iideysan. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iyaduna waxay heshay fursado badan, waxaana fursadahaas inta badan ka khasaareynayay laacibka Mason Mount oo inta badan laga badbaadinayay, ciyaartana ka ahaa xidiga kubadda maamulayay isagoo oo taagnaa dhan walba oo garoonka ah. kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay samaysay bedel kaasoo ay soo geliyeen ciyaarta N'Golo Kante iyo Lukaku ayaana kooxda kubadda cagta Chelsea ka khasaariyay fursad qaali ahayd. Kai Havertz ayaana ciyaarta markay 90 daqiiqo marisay hurdo u diray isagoo shabaqa ku aasay kubad baas uu ka helay N'Golo Kante kaasoo bedel ku soo galay ciyaarta. Ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar xiiso iyo xamaasad badan, waxaana la islahaa caawa kooxda kubadda cagta Chelsea iyadoo niyad jabsan ayaa waxaa ka badin doonta kooxdan divisionka cararka ee Norwich City oo iyaduna ka faa'iideysanaysa murugada iyo qalbi jabka haysta kooxda kubadda cagta Chelsea. laakiin xaalku sidaas ma ahayna wuu ka bedelnaa. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay muujisay dadaal iyadoo oo tiri weli waanu faraxsannahay, waxaanu nahay Chelsea aad taqaaneen. kale kooxda Barcelona ayaa waxay gurigooda bareejo kula gashay gool la'aan kooxda Galatasaray iyadoo New Camp ay marti ugu ahaayeen, waxayna ciyaartaas ku dhamaatay barbaro gool la'aan. kooxdii Barcelona ahayd ee lagu yaqaanay inay ka dheesho UEFA Champions League sanadka maanta waxay ka dheelaysaa European League iyo waxaan la garanayn. war hadda kooxdii Barcelona ahayd ee aad taqaaniin adduunka championada qaadasay ee maxaa la dhahaa ahayd kooxdii ugu khatarsanayd qaaradda Yurub sanadka maanta waxay ka dheelaysaa European League bay ka dheelaysaa kooxdii bareejo iyo meelahaas iska gelgelaysaa. markaa caawa kooxda kubadda cagta Barcelona waa lagu dhigay, ciyaartaasna waxay ku soo dhamaatay 0-0 gool la'aan.
heer Turki ayaa waxay soo bandhigtay daafac aad u adag kaasoo ahaa dhagax xadiida oo aan la mari karin. Barcelona ay yaabtay, aabaa yaabay, ma maqli jirta, aabaa yaabay. Haddaba kooxdii Barcelona ahayd waa yaabtay caawa. ciyaartaasna waxay kusoo dhammaatay 0-0. kale ayaan faraqayntooda geli doonaa ciyaarihii caawa maxaa la dhahaa, laakiin intaas ayaan hadda kusoo gabagabayn doonaa. saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan, jawga haydin wacnaado. Subscribe iyo like-tana ayaan laga ilaawin.